waan jecelnahay in da'da aan nagala dareemin inkastoo ay gaari doonto heer aan la xakameyn karin. Dadka qaar iyagoo weli da'yar ayuu ka muuqdaa gabow, laakiin waxba ha walwalin. Maanta waxaan halkan kugu hayaa sirta ka dambeysa in qof sanado badan jira aysan ka muuqan da'da dhabta ah. Waxaa jira cuntooyin si gaar ah uga hortaga in maqaarka ay ka muuqato da'da ama xubnahaada ay gaboobaan. Cuntooyinkaas waxaa ka mid ah 4 nooc oo aad si sahlan ku heli karto. 1 waa digirta. Dadku badanaa ma jecla digirta, iyagoo aan aqoon xitaa sababta ay ku nacayaan. Fadlan baro faa'iidooyinka caafimaad ee leedahay digirta, kadibna go'aan ka gaar. Hal faa'iido oo qof walba uu ku farxo waa in digirta ay ka hortagto duqnimada. Hase yeeshee dadka qaar ayaa xasaasiyad ku qaba, kuwaasna waxaa habboon inay ka fogaadaan maadaama ay caafimaad darro u keenayso. 2 waa liinta. Liinta nooca loo yaqaano bambeelmada ama liin macaanta waxay waxtar badan u leedahay jirkaaga. Waxay sifaysaa dhiigga, maqaarkana waxay ka ilaalisaa inuu gaboobo. Waxaadna liinta u isticmaali kartaa cabitaan ahaan ama si caadi ah ayaad u cuni kartaa, laakiin ku dadaal inaad mar walba wehelkaada ka dhigato. Sidoo kale dhakhaatiirtu waxay liin macaanta kula talinayaan dadka dhiig yaraanta hayso. Cuntada saddexaadna waa karootada. Waxaa laga yaabaa inaad horay u ogeyd faa'iidada ay karootada u leedahay indhaha. Ma ogtahay in sidoo kale ay ka hortagto gabowga oo ilaa dhowr sano ay kuu qaranayso? Si aad wax badan uga isticmaasho, waxaa fiican inaad shiidato oo aad si joogto ah cabitaan uga dhigato. Khubaradu waxay kula taliyaan inaan sonkor lagu darsanin oo si nadiif ah loo isticmaalo karootada kaligeed. Cuntada afraadna waa kalluunka. Inta badan waxay dadku kalluunka uga cararaan waa udugiisa oo ay u arkaan inuu yahay mid shir badan. Laakiin waayadii dambe waxaa sii badanaya dadka ku baraarugay faa'iidooyinka caafimaad uu leeyahay malaayga. Qofka kalluun la saaxiiba weligiis ma duqoobo ama durba kama muuqato da'da.